gabar ishukaansanayay ayaa wiilkii waxa hadalka ku bilaabay walaal waxaan doonayaa inaan kula yeesho shir albaabadu u xiran yihiin oo uu la jeeday waxaan rabaa inaan kulan gaar ah kula yeesho gabadhiina waxay ugu jawaabtay waxba kama qabo markii ay kulmeenna wiilkii ayaa hadalkii ku bilaabay walaal weli dawlad ma soo dhistay oo uu la jeeday ma lagu soo guursaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay haa walaal kadib wiilkii waxa uu weydiiyey ma lagu aqoonsaday oo uu la jeeday ubad ma soo dhashay gabadhiina waxay ugu jawaabtay maya walaal aqoonsi ma jiro miisaaniyadda dalkuna hoos bay u dhacday oo ay ula jeedo dhaqaale xumaa dhacday dabadeedna ayuu yidhi waxaynu ugu jawaabtay mooshin baan ka keenay sidaasaana uga guulaystay bay tidhi oo ay ula jeedday waan kala tagnay wiilkii kadibna waxa uu weydiiyey armaad anigana mooshin iga keentaa haddii miisaaniyadda dalku hoos u dhacdo oo ula jeeday haddii anna dhaqaale xumo igu dhacdo amaad anigana kuleetiga igu dhegtaa kadibna waxay tidhi maya walaal waxaan kuu samaynayaa muddo kordhin oo ay ula jeeddo waa kuu sabrayaa waayo waxaan ogaaday bay tidhi in dawlad xumi dawlad la'aan dhaanto oo ay ula jeeddo iskaabulannimo nin fakhri ahaa dhaama kadibna waxa uu yidhi hadda ma ii codaysay waxay ugu jawaabtay weliba si aqlabiyad leh wiilkii baa kadib waxa uu yidhi doorashadeennu sidee bay u dhacaysaa oo ula jeedu meherkeenna qaabkee loo dhigayaa waxa uu sii weydiiyey ma habdeegaan mise 4.5 kadibna waxay ugu jawaabtay walaal 4.5 ma doonayo waxaan rabaa habdeegaan oo ay ula jeedo meherkayga waxaan doonayaa in dariskii asxaabta ka soo qayb galaan kadibna waxa uu yidhi waayahay walaal waxaa inoo ballan ah inaan wakhtiga doorashada sugno